السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada barnaamijkeena ogaalka cilmiga. Barnaamijkan waxaan kusoo qaadanaa qodobo xiiso leh iyo dhacdooyin la yaab leh. Dhacdada ugu horeysa waa odaygan waxa uu jiraa 110 haduuna ka badnaynba. Waxa uu kamid yahay dadka ugu cimriga dheer ee ku nool hadda dunida. Xaaladiisu hadda waa sida. Dhacdada labaad waa Ocean Tower. Dhismahan waxa uu dhererkiisu yahay 115 mitir. dhismahan waxaa la dumiyay 13 sano ka hor. Shaqaalihii dhisay ayaa isku dayay in ay hagaajiyaan ama ay qaab kale u dhisaan, balse waa ay suurtagal weeyeen. Qiimeyn badan kadib waxa uu soo baxday in lacag badan ku kacayso dib u hagaajintiisa iyo waliba waqti aad u badan. Bila kadib shirkadii waxa ay shaqaaleysiisay shirkad ku shaqo leh burburinta si tayo leh dhismayaasha si qaladka ah loo dhisay. Land Tower waa dhisme dhererkiisu uu yahay 116 mitir. Dhismahan waxaa la dhisay 1957. Waqtiga waxa uu ahaa dhismaha ugu dheer magaalada. 2006 ayaa la bilaabay in la dumiyo iyadoo la rabo in dib loo casriyeeyo. Waxa kaliya ee ay ku qaadatay ama waqtiga ay ku qaadatay burburinta dhismahan waa in ka yar daqiiqado. Dhismaha kale waa tower dhererkiisu yahay 116 mitir. Si loo burburiyo dhismahan waxaa la isku dayay in la shaqaaleysiiyo injineero takhasus dheeraad ah u leh burburinta dhismayaasha si dhammaystiran. Daqiiqada kadib waxaa dhulka la dhigay dhismahaas. Dhismaha kale waxa uu ku yaalaa Shinbin, magaalo kamid ah China. Dhererkiisu waa 118 mitir. Waa hotel loogu magac daray Ubaxa Dahabka. Dhismahan waxaa la dhisay 1996. Muddo dheer kadib iyo cabasho ka timid dadweynaha ku agnool dhismahan ayaa waxaa la shaqaaleysiiyay injineero ku duminaya lacag hotelkan. Waxayna ku qaadatay daqiiqado in dhulka la dhigo dhismahaas. Waa bakhaarka dharka ugu tayada leh soo bandhiga. Bakhaarkan waxa uu dhererkiisu leeyahay 137 mitir. Waxaa la shaqaaleysiiyay injineero cilmi dheeraad ah u leh sida loo dumiyo guryaha. Waa haamaha korontada dhaliya. Haamahan waxa ay ku yaalaan meel kamid ah dunida. Burburinta haamahan maaha arrin sahal ah. Waxay dhaliyaan korontada midaas oo khatartooda kordhin karta. Dhererkoodu waa 157 mitir. Markii la shaqaaleysiiyay injineero takhasus iyo tayo dheeraad ah u leh burburinta dhismayaasha waxa ay ku qaadatay inay dhulka dhigaan oodna ka kiciyaan in ka yar 2 daqiiqo. Barnaamijkeennina maanta waxaan kusoo afmeeranaynaa kulan dambe oo xiiso leh.